madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta soo xirayay shirweynaha garsoorka dalka ayaa Somaliland raaligelin ka siiyay duqeyntii dowladda kacaanka ee magaalooyinka Somaliland sida magaalada Hargeysa. Waxa uu sheegay madaxweynaha in wixii xilligaas dhacay aysan ahayn arrimo qabiil ha yeeshee ay ahaayeen arrimo loo soo maray nidaam dowladeed oo waqtigaas jiray. Isagoo arrimahaas ka hadlayay ayaa waxa uu yiri waxa loo baahan yahay garawsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameeyno inaan raaligelin ka sameeyno dadkaas waa leeyahay intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysan ma ahayn waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalahayn reer waqooyi idinka ila qaadataa dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoyaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa garowsho kale loo baahan yahay oo annaga dhexdeena ah hadalka madaxweyne Farmaajo oo maanta ka sheegay shirweynaha garsoorka dalka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya uu madaxweynaha Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi walow aan la shaacin waxyaabihii ay kulankaasi uga hadleen. Bashiir Cabduqaadir, raadiyaha telefishinka SBC, Muqdisho.